warbixin dhawaan ay soo saareen khubaro qaramada midoobay ka tirsan waxa lagu sheegay in fila Soomaaliya ay laaluush ay ku bixisay in ka badan nus milyan oo dollar si ay u soo saarto musharaxiinta ay taageerto doorasho ka dhacday koonfur galbeed bishii December ee sanadkii hore. qoraalka oo soo baxay toddobaadkan waxa lagu xusay in doorashada koonfur galbeed ay saameeyeen qalalaaso iyo laaluush lagu iibsaday xildhibaanada. maanta oo Khamiis ah waxa magaalada Baydhabo ee gobolka Baay lagu qabtay kulan ujeedkiisu ahaa taageerista warbixintan ay soo saareen khubarada qaramada midoobay iyo sidii xoriyadiisa uu heli lahaa Sheekh Mukhtaar Roobo Cali oo Mansuur oo wali u xiran dowladda federaalka Soomaaliya. waxa lagu sheegay kulankan in marraba la iloowi doonin sida warka loo dhigay xubnihii lagu dilay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. saas darteed waxaan u sheegaynaa caalamka waxaan maanta ayidnay ma aragtay shirki ma aragtay go'aankii ka soo baxay golaha amniga oo ka soo baxay ayidnay waxa kale oo ayidsanahay ummadda Soomaaliyeed oo sheegaysa wixii Baydhabo ka dhacay oo ma aragtay meel wali ka sheegaysa sidii ma aragtay Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri Mukhtaar ninkii cadaalad sugay Mukhtaar leh kuwaan saqaatay iyo ragaas oo dhan Sheekh Shariifna wuxuu yiri ninkii inuu xureey raba Mukhtaar ma xiri lahayn dad badan baa ka hadlay oo ummadda Soomaaliyeed iyo wixii ka dhacay koonfur galbeed dad badan oo dhaxaya yaa jira iyagana hata waa aysanay ninkii magacayna sheega hata waxaan u haynaa abaalaan u haynaa oo ma aragtay dhibaatada annakana haysat hadda 7 nin aan laga dilay oo askar leh dishay nin kale aan dilin oo ninka wasiir soo noqday waxa weli soo noqday Ali Marguus 4 nin lagu dilay naag ay 4 ka tahay 3 nin oo military ah in naag boolis ah dileen waxa la yiri reer hebel baa dilay ya magaca suuq la gashaday annaka qabiilna ma dilin hortii waxana la dhahay harin baa idin dilay harinna ma dilin askar baana dishay marka horena askaraana dishay haddana askaraana dishay marka saas darteed caalamku waxaan u sheegaynaa in arrimaha jira aad ogaataan ninka maanta habsiga ku jirana waa kan Mukhtaar weey oo ma aragtay gardarre lagu xiray markii oo sharcigii oo ma aragtay uu lahaa iyo kaasiyay passport international la siiyay waa ku xajiyay oo Sacuudi uu tagay ma aragtay meelahaas uu soo maray ma aragtay markii dambana iyo ka soo qaaday hudur magil jilbow wala ka dhaqdo meelan unusun hatana haysata mandul qaado doon way in sheegane hadii Soomaaliyeed hadii United Nations ka way balana dhibaatada hadana hayta mandul qaado korn inana tirtir jiritaankan la baabi yalla hanbahi haddu kora may ka deegnay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lan kale raw ya hadalana rasuul sheekay deegnana ma dhagansan laakiin Soomaaliya ku deegi maray degali marifleen dalu madad meewar in dad ana oo bilaahi ogolaada wala kala madoon wala dul qaadani hadina neen ku qaadna dhibaatadana neeyahay neen ku dibin way balaariga doona degme ko fujaas wala rawlana sheegana caalamka midow Afrika midow Yurub qaramada midoobay dhammaan dawladaha dariskan wala sheegana arinteeda eedan ka xad gudubi in arintaasay si daaragtay wal ku qabdan Sheekh Mukhtaar Roobo afduubani ma mihirin anti afduubani wali kiin ka daadante lanka muwaadin Soomaaliyeed hadii la gobada 24 saac ku badan xabsimo ka jaraw maxkamada la saare sharci la kore wala usmayla raay hal sanad iyo tum ilan bilood wala jari usun hirinyi maxkamadan la karan afduuba kirinyi alam kolin sheegana in lankaasay afduubani lankin hirinyi afduubani min shakhsiyan ka jar taniyada wali fadana jawaab degdeg caalamka ku fadan ini way rajaan caalamkan nisi daaragteen qaadado doon ya unun yada ku rajaan marlamaad marsadaad may ka nagaane Mukhtaar Roobo afduubani ma mihirin lankiin sun afduubani hal ku gawday galantiisa la ku biyay dhammaan caalamka dariska dawladaha dariskana iyo midow Afrika dhan dhammaantiyo orada igad intaasa ku odsadaan nimankii isbedel doonka xisbiga tanti shir jaraa'idka ka gobada ma ila ray amnigi cadaalad madaxweyne Sheekh Mukhtaar Roobo usu madaxweynuhu xilkiisu shalayr sadeglam gorshahaad sharaf lansi ma ila ray odsijaylan ogolaade madiisu la gobada ayaa madaxweyne nagday amnigi cadaalad madaxweynegay shirkaas xisbiga neesbana ogoonsiyo waan wala ogoonsiday wali ku rajaan arinteeda in si dhabe caalamka dadaalka ku jaraysa daraabsha dagaalanku gal unun yada codsadaan
madaxweynaha koonfur galbeed way ku rajaan inuu dib u heshiisiin dhaqba inuu ka baaq dib u heshiisiintu soo ku horjeed madaxweynaha federaalka ku horjeed salikeeliye maamaya lii korab in dib u heshiisiin la beengal sheegay beengal ka dhagaday dulmi la ka dhagaday walaas wal nis sheeg korma maana ma ogolaadan haddii yo dhab fadaayan hal fadaayan maslaxa aamay fadaayan dib u heshiisiin ay ka dawaabay dib u heshiisiinta lan kala yirin hala dhiyoy gabagabadii war-saxaafadeed ka soo baxay kulankan ayaa lagu sheegay in ciidanka maamulka koonfur galbeed waxyeelo ay u geystaan rayidka iyagoo u raadinaya qiil ah ka tirsanaanta al-shabaab waxaa loogu baaqay war-saxaafadeedka sidoo kale in beesha caalamka ay soo fargeliso xaaladda caburinta ah ee ka taagan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay si kastaba kulankan oo soo abaabulay xisbiga amni iyo cadaalad ayaa lagu dalbaday in dowladda federaalka soomaaliya xorriyadiisa ay dib u soo celiso hogaamiyaha xisbigaas haranjele goobjoog muqdisho.